Waa calaamadaha lagu garto qofka xaasidka ah. Walaal, xaasidnimada iska dhaaf, waa shay xun. Haddii aad aragtid fiidiyogan YouTube-ka Cabdifataax Muumin Daahir, Cabdifataax Ciiltire, subscribe, like, share. Astaamaha lagu garto qofka xaasidka waa kuwee? Qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa waa dibindaabyo miiran ama isku dir miiran, waana mid ka shaqeeya gadaashaada si uu u furfuro xarig kasta oo aad xirtay oo maslaxadaadu ku jirto, weliba si dadban oo aadan iskaga garan ayuu sidaasi u sameeyaa. 2. Qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa waa munaafaq ku isticmaalaya laba weji: weji fiican oo aad ku taqaanid oo uu dadka ku siro si loo moodo qof fiican, iyo weji qarsoon oo cadowtinimo ah oo uu noloshaada raba in uu ku gubo. Qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa in uu waa iskugu dirdiro dadka isaga oo iska dhigaya qof caawimaad badan, asxaan badan, runsheeg badan, si aad isugu furfurto oo uu xogtaada iyo meelaha aad weaknesska ama ka jilicsan tahay ama aad ka dabacsan tahay uu ogaado, si uu u helo wadada ugu fudud oo uu ku baabi'in karo noloshaadana uu u kala tuuri karo. 4. Qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa xiriir joogto ah oo ka badan sidii caadiga ahayd, isaga oo ay ujeedadiisu tahay si uu mar walba xogtaada iyo waxa ka cusub noloshaada uu u ogaado, si uu isna howshiisa u wato, adigana aad ugu moodid saaxiib fiican oo kaa warhaya mar walba, balse arinku sidaasi wuu ka duwan yahay. 5. Qofka xaasidka ah waa mid xam badan, mar walbana ka sheekeeya dadka sharafta leh, isagoo dhaliil xun u raadinaya dadkaas wanaagooda iyo guusha ay gaareen. 6. Qofka xaasidka ah waa qof neceb oo mar walba jecel in uu dabka dhex shido lamaanaha isqaba ama isguursan raba oo isku faraxsan, saaxiibada isku wanaagsan oo isjecel, deriska isku wanaagsan, walaalaha isku faraxsan oo isjecel, waalidka iyo ilmihiisa, iyo laba qof oo kasta oo wanaag ka dhexeeyo. 7. Qofka xaasidka ahi waa mid xanuunsanaya oo ka xanuunsanaya nimcada Ilaahay dadkiisa uu u qaybinayo ee maalinlaha ah. Waxa uu jecel yahay in qaaliqa isaga uun wax siiyo, oo dadka oo dhammi aysan wax ka soo gaarin nimcadaas. Dhibaatada haysata xaasidkana waxay tahay dagaal aan guul laga gaarayn ayuu ku jiraa dharaar iyo habeenba. 8. Qofka xaasidka ah waa mid ay ka maqan tahay xasiloonida iyo farxadda, oo aaminsan in wax kasta oo wanaagsan Allah isaga ka qadiyay, oo ku fakiraya dadka kale ayaa adiga ka nasiib wanaagsan. 9. Qofka xaasidka ah waa saaxiibka dhabta ah ee shaydaanka, ama kaba sii xag jirsan shaydaanka. Waa qof xitaa markuu salaada ku jiro ku mashquulsan oo ka fikiraya sidii uu qof walaalkiis ah u dhibi lahaa ama u dibindaabiyan lahaa. Waa qof waqtigiisa inta ugu badan ku lumiya baabi'inta iyo waxyeelaynta bini'aadamka, balse waa mid mar walba ku fashilma dibindaabyada iyo xumaanta uu sameeyo, guulna aan ka gaarin. 10. Qofka xaasidka ah waxaa ku yar iimaanka iyo ka cabsashada Rabbi subxaanahu wa tacaala, waxaana u fudud wax walba oo cagta ku marin karo wanaagga dadka, xitaa in ruuxda ka jaro qof way uga fududahay koob biyo ah oo la cabo, sababtoo ah cuqdada iyo xumaanta qalbigiisa ka buuxda ayaa ilowsiisay alla ka cabsigay iyo waxa uu kala kulmi lahaa maalinta qiyaamo. Qofka xaasidka ah waa maseerlow. Maseerkuna ma ahan keliya kan ay kala maseeraan labada isqaba ama xiriirka leh, balse kan xaasidka waa maseer uu ka maseero qof wax wanaagsan haysta, qof awlaad wanaagsan dhalay, qof lacag haysta, qof wax bartay, qof sharaf leh, qof qurux badan iyo wixii la mid ah. Waxaana u sii dheer in uusan jecleen qofkaasi in uu waxaasi haysto, oo uu jecel yahay in isaga uun waxaasoo dhan kusoo koobnaadaan. Astaamaha uu yeelanayo qofka xaasidka ah halkan laguma soo koobi karo, aad ayayna u badan yihiin astaamaha qofka xaasidka ah lagu tilmaamay. Waxaan eegi doonaa
xukun ahaan qofka